رحمة الله صلى على سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم maanta sida daawadayaal dhageysta wada aragtaan wala ciidaya waxaan joognaa Jubbaland magaalada madaxdeeda ku meel gaarka waa Kismaayo halkan aanu joognaa waxa la yiraahdaa waa xarunta madaxtooyada dadkii oo dhan baa isugu soo baxay waa la ciidaya madaxweynaha baa jooga oo khudbad ka jeediyay waa Sayid Axmed Maxamed Islaam Axmed Midaaye Axmed Midoobe waxa lagu bedelay Axmed Midaaye soo gar waayahay bal hadda dadkii baan dhex joognaa one by one sida loo ciidayo ilaahay idamkii bal waan wareysan doonaa waayahay assalaamu calaykum waayahay bal hadday soo raacdaa wadayaal dhageystayaal assalaamu calaykum waayahay waa la ciidayaa ay dhakaweyseelaya waayahay daawadayaal dhageystayaal waxaan la taaganahay waa bulshadii ciidaysa waa bulshadii Jubbaland waa la ila socdaa beesha caalamka dhan la inaga daawanaya bal xaga jaleexada beesha caalamka dhan la inaga marka waa ciid wanaagsan madaxweynihii baa khudbeeyay dadkii waa kan waa la isu subxaa waa kan caruurtii xataa waa ciidaysaa waayahay marka daawadayaal dhageystayaal farxadda iyo quruxda iyo damaashaadka iyo ma sha Allah waxa ka muuqda meesha waad u jeedaan waayahay waynu dhex qaadaynaa bal ilaahay amarkii marka labadan ciyaalka aanu sabada garo bal waan dhex qaadaya dadka waa barnaamijkeeni ciid wanaagsan waayahay abo waan salaamiyaa hay ciid wanaagsan magaca wariyaa ما شاء الله هيه وايه وان سلام يا عيد وناكسن سو دواده عيد وناكسن سو دواده برنامجكن عيد وناكسن waxaan joognaa madaxtooyadii Jubbaland waa magaalo madaxdii ku meel gaarka magaca maxamed baa leeyahay maxamed beesha caalamka dhan laga daawanaya dadkaweyne media kula taagan haye bal dadka Soomaaliyeed fariin u dir marka nin waa araga tahay fariinta u diraya waxa weeye nabad waa saddex mar hadda eega nabad wada noolaansho استحترام saddexda kalma u diraya ciid wanaagsan waa leeyahay way dadka jooga Soomaalida ee dalka gudihiisa jooga iyo kuwa qurbaha jooga hadda waxa leeyahay kuwa qurbaha jooga ka dhib badan ba iyagu ma ogtahay mayna jaamacadii aynu dhiganay ee indha cadaysa 30 sano ahayd iyagu mayna arag oo salaamaya ayaade ciid wanaagsan haye jaamacadayda IIU indha cadaysa International University ma dhigatay inaad soo gasho ma doonaysaa waliba faculty waxaan ku sheegay hadda aad la isu qorayo أنا وحنا فكلتي اسم غيق الله وكا اسم هذا دوني سير إسكان نقطة رئيس وزراء هذا دوني إسكان نقطة إن برلمان هذا وزير دوني اسم غيق أنا كان نواي من الساس اسم غيق عند عديس ما تكون غنيس عند عديس فكلتي اسم بسوق الرجال مركا وزير بثرتين لقاعدكوا إن عديس إسكاي هذا ويا السلام عليكم ورياه مقعاه كبدة معيارته عبد المالك نمبر كذا كعيارته أنا هذا نمبر 7 أنا هانجري نمبر 7 نص ما له لا تغني والسلام يا داود يا لقيتيا واي هو العيدية واحد شوكت عقاشي واحد شوكت متعلمينتي واحد شوكت ميلتريجي واحد شوكت بيرليدي واحد شوكت قناصياشي واحد شوكت عيارتويدي واحد شوكت علماء دينكي واحد شوكت كوكياشي واحد شوكت كبريريتي واحد شوكت جيل تبيه إن كان هذا وايه السلام عليكم وايه بل كان هذا صباح عيد وناكسن
عيد وناكسن عيد وناكسن والله إلى الصعداء ماشي سومالي ودم باكو داونيس سيتي صار ما في إلهي مهدي ما أنت وين عيدني ما شاء الله ما شاء الله هذا حافظه اللي قلنا غنيا صدح ناف وعلي ريرك وحدين ديسكتشر كسماية جرو والبا صدح ناف وكحدين أنا كل جرو كان كيم يخرب عن روح النيد وين عندي يقول من كذا ملعب ما كان فريسان وعي هي باش عالم كنا حجون كنا مالين قد داونيا سومالي ودم والعيدية هيك كسماية ما أنت والعيدين فرين هذا دري لحي هذا تشانس كده كوين ميديا كفايدة سنية ما حد سومالي ودري لحي تلك جوديس يديو دي سنة سومالي وحاود دريها إن المدوب المدوب جماعة خمسة ما يسخر صدق ودين تكبر دين تهلا قدقو دين اللي قدقو يعني أدريها نبتقولي أنا اللي نبي يقولوا أكيد جوستمات كوكو قبصة أصلا دريها وان قرتي أنت أصلا دريها ورهي واد مغشان هوي دad كان إنكو صدق سنة إنكو سوى الرقوب يقع وإنه صار رفاضنا ما أنت نبتقولي هذا تقولون كذي بينهم أنا دad كان وحبة وجين القربة هذا كيم أما يلك الكيم دوني عيارتين هذا باللعبان هذا رن لهاي دad عندنا عندك تندبوا لك اسكنستا نداية نبتقولي دنك داقة jaamacadda indha cadayska inaad ku soo biirto madoori IIU والله ما شاء الله دليل waan salaamaya ciid wanaagsan waaya soo baxa daawadayaal dhageystayaal waxaan joognaa xarunta ku meel gaarka ah ee magaalada Kismaayo waa Jubaland madaxweynuhu uu khudbeeyay inta salaada la tukan hadda salaadii baa laga baxay assalaamu calaykum Soomaaliya oo dhan baa ku daawanaysa waan idin imanaya Soomaaliya oo dhan baa ku daawanaysa Soomaaliya oo dhan baa ku daawanaysa bal dadka la hadalo gudaha dalka iyo dibadda waa la ina daawanaya maxaad oran lahayd dalku waa nabad wanaagsan Soomaaliya waxa la ciid wanaagsan Soomaaliya waan gartay Kismaayo waa nabad doorasho ka socota nabadgelyo ku dhamaanaysa Axmed Maxamed Islaam guul واعي نولاتي دونيان هي سيتها إلهي مهد هي ها شو ويرح لك ويني سيتها هذا ايش عالم كله ما لنا دعوانا يا دنيا دي ودن سمعنا عيد وناكسن هي عيد وناكسن دعوة يا لي لك ويني سير لي سير على عيدي عيد وناكسن عيد وناكسن لو ما كلا حدين معنا لو ما كلا حدين غير كوينه ولا سيمي sidee la ciid wanaagsan bal hadda waa Soomaaliya oo dhan in la dhageysanaysay hadda bal fariir qac ka siiyo oo tii culimada ah bismillah إلهي هاينا بركة مركون إلهي هاينا بركة ما أنت هو الله أقبل عملك الله ينقدقه إلهي إذن كي سوق هذا إلهي إذن كي وتشدون بالله هاي كود جارة ونوت كود جارة الله ينقدقه وان قرتين waxaa la yiri Soomaali waxa ku mahmaada in adeerka furxman uu kugu caaya fayna kuma ogola dawlad goboleedada kale ee xogaa inta isku dhaxyaacaan Jubaland nabadgelyadeeda iyo dimuqraadiyadeeda iyo nolosheeda ka yara hinaasan ee lama sidanado kale isku dhaxyaacaan kuwa maxad fariin u dir lahaa waxaan dhihi lahaa ilaahay baryo marka hore ilaahay barya iscafiya haye annaga nugu dayda hana xasidina dhaka weyne horay u socda magacaygu waa Ugaas Cabdiraxmaan hadda iska jir waa Ugaas Cabdiraxmaan dhaka weyne adiga hal su'aalan ku weydii wadanka Soomaaliya marar badan baad soo dhex joogtay doorasho ku jira yaa joogtaa waxaan ku weydiin lahaa nabadgelyadan meeshii aad maalmo dhaweyd ka muuqatay ma taalimsmoon aan idin warraba markaan runta sheego in ilaahay ka baqmaal ciida lagu jiro carafee Jubaland markaan imid horta Yurub wali ma tagin laakiin aflaanta ka daawaday Jubaland markaan imid wadamadii reer Yurub baan soo xisto alla igu ogyahay nolosha iyo deganaanshaha iyo nidaamka iyo quruxda war waxaan is warar ma dalkiiba ka tagto riyoonaysa anigu waa dhirbaaxa isku bilaabay hor salaamay way daawada dhageystayaal wali waxaan ku jirnaa barnaamijkeeni ciid wanaagsan bal hadda xaqan u dhaxqaadayna soo baxa السلام عليكم بدك وينه ودك وينه بلي ورهن ورمانت وين عيدينا اللهم صل على محمد وسيدي صلاه دينتك انا صديقاشي وبدك وين لفتيسي السلام عليكم الهي مهدي وين عيدينا وين عافنا قبلنا ما انت وين عيدينا مدحويني وين ناخذ بيه والله مره ويد على يركب ثمن waxa la yiri xamar baad ka timid
toddoba sanaan xamar dhex taagnaa iyo bal Jubbaland ka waran baa leeyahay ay fariinta tuur dadka la hadal Soomaaliya ummadda Soomaaliya waa ciid wanaagsan ugu bilow horta ummadda Soomaaliya iyo abwaan dhaka yare ciid wanaagsan kulligeena la isku keen daray ummadda Soomaaliyeed oo dhan meel ka soo joogto ciid wanaagsan aye sanadkiisa kale barwaaqiye bashbash baan u rajaynaynaa aye reer Jubbaland nabad iyo deganaansho yaan u rajaynaynaa iyo doorasho wanaagsan oo xor oo xalaal ah haye oo ay ayagu isdoortaan iyadoo la faragelin qalalaasaha ka soo baxay leedin iyaguna waxay leeyihiin nabadgelyada ka soo baxo qalalaasaha ku soo biira waan diidnay mar rabnaa leedahay iyaga aad leedahay nabadgelyada ku soo biira nabadgelyada ku soo biira warwaad maqashaan xaasidiinta ayaad maqashaan kuwa xaasid iga leexan ku leeyahay dhigay السلام عليكم سيلياي إلهي مهدي ووري وحسن يره واحد دبر حسن يره سيلي حسن سويني بي حار مسمى دي نقطة لا بنكو أركي وايبا واد مغني وحنا تاجنا حلبان حسن يره حلبان حسن وحا كداوانا الصومالي ودن سمعت قرن نين علوس إنا تود كوينة تاني ولا قابر هيا بل فرين يرو ترددك وحي يرو فرينا marka hore ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxaan leeyahay ciid mubaarak marka labaad waxaan ku suganahay magaalada Kismaayo xarunta ku meel gaarka dowladda Jubbaland waxaan haysanaa amni iyo barwaaqo iyo bashbash waxaan loo diyaar garoobayaa ciid marka dhamaatay insha Allah doorashadii socotay xildhibaanadii processka uu socdo guddoonka doorashadiisii madaxweynaha doorashadiisii waxaan rajaynaynaa doorasho xor iyo xalaal ah inay ka dhacdo ilaahay idin dib uuna ka dhicin madaxweynuhu saaka aan ka dhaxgalay mudane geesima gaagaxee madaxweynuhu saaka qabeynayeen wuxuu yiri doorashooyinku waxay keenaan cuqdad iyo in la isnacee war waxayna ku mashquulnay intaan iscafino ay wada jirayno walaal ahaan madaxweynuhu ilaahay ma hadale iwad marka doorashadaas waxaan rajaynaynaa insha Allah in doorasho lagu qanco xor xalaal u dhacdo insha Allah shacabka Jubbaland waxaan rajaynayaa insha Allah inay amniga ay haystaan ay adkeystaan midnimadooda ay adkeystaan ay iscafiyaan dadka tafaraaruq iyo dhibaatada ku wada iska ilaaliyaan midnimadooda wada jirkooda maanta waxay haystaan waxa la soo maray way yaqaanaan in dowladnimadooda ilaashadaan ayaan u baaqayaa dadkii galmudug ishaas u galay hirshabelle saa u galay Southwest bay dhibaatada ka geystay Puntland dhibaatada geliyeen aragteen ayaa rawa Jubbaland oo midiyaha soo faysanaya marka Jubbaland laakiin dadka lahaa waa jooga ilaahayna waa jooga Allahu akbar Jubbaland saxaafad iyo quraan way haysataa laakiin waxa rabaa dhismaheeda Jubbaland kumanaan wiil oo u shahiiday kumanaan oo u dhaawacantay kumanaan asaga u qaaday kumanaan kuna difaacdana way joogtaa ma sha Allah wuxuu ahaa wala ilaalinta waa xildhibaan xasan yare oo heer federaal hadda iska jireen oo ku dhuuman waayay nakeena aad waad sata waayay adiga inaan iskulno xageed waqti ku dhajijigu ka yimid soo dhaka weyn oo la kulmo talo ilaahay loo saaray waan doorashadan waxa weeyaan Jubbaland qayb uga noqdo waan gartay aad baan saaka u faraxsanahay ciidan kula kulansanahay madaxweynaha halka uu taagan yahay xaaladdu ay sidaas u aadan tahay wixii su'aaladii weydiisan waan ka jawaabi jigjigaha dad ka timid waan gartay waxaad uga timid doorashooyinka waan gartay waxaan kaloo inaan safarka ku soo aadan yahay baa la ii sheegay meesha la yiraahdo Kismaayo qayb ka tahay mataqaana doorashada iyo qorshayaashan diyaana qayb baan kala waayahay inkastoo ciid wanaagsan ku jiro oo ay tahay waliba ciidii carafo waa ciidii weynayda muslimiinta haddana doorashooyin baa dhici doonee dad badan wayna daawanayaan siyaasadda iyo ciidan aan kala ilaalinna baa la yidhi maanta oo madaxweynuhu wuxuu yidhi maanta waa maalin farxadeed oo waa maalintii muslimiinta siyaasadii aan lagu mashquulin buu yidhi soo maad garan marka haddana ciid mubaarak haddana haddaynu hoos ma garanaysaa iska yara xadno codkayaad siin lahayd adigu codka waxaan siin lahaa Axmed Maxamed Islaam oo halkan soo gaarsiiyay Jubbaland eeg hadda magaciina waa la bedelay Axmed Madoobaha wax lagu bedelay Axmed Midaaye inta gaar soo ma السلام عليكم هذه هي داوديال dhageystayaal hadda waxaan sii socdaa madaxweynihii Jubbaland Sayid Axmed Madoobe oo wax yar ii jira bal in keenay madaxweynaha salaamayna داوديال dhageystayaal soo raac waa Sayid Axmed Madoobe assalaamu calaykum ilaahay ma hadal ilaahay ma hadii madaxweyne alxamdulillah داوديال dhageystayaal ilaahay ma hadal waxa ii soo gashay inaan salaamo madaxweynihii Jubbaland waa dhaka weyn madaxweyne iyo fadhiisa madaxweyne
ونسد بينا وكل يوم دونا برنامج هذا مدحين waxaan ku jiray ciid wanaagsan waan ka noqonayaa insha Allah way soo iman doonaa wassalaamu calaykum haye ila keen daawadayaal dhageystayaal daawadayaal dhageystayaal barnaamijkeeni ciid wanaagsan ee aynu ciida carafo ka sameeynay waa xarunta ku meel gaadhka Kismaayo waa madaxtooyada maanta intaasaan ku soo gabagabeynaya ilaahay idimkii barnaamijkan mid lamada intaan ku kulmi doono waxaan idinkaga tagayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wabillahi tawfiiq